fadhigii maanta uu shir gudoominayay gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro isla markaana ay ku sugnaayeen 47 xildhibaan ayaa qodob ay xildhibaanadu cod ugu qaadeen xeerka xabsiyada oo ka kooban 29 qodob kaasoo ay dhawaan u soo gudbiyeen golaha guurtu kadib markii ay kaabisi wax ka bedel ku soo sameeyeen iyadoo mudanayaashuna ay cod gacantaaga ku meelmariyeen waxaana ogolaaday 42 xildhibaan halka ay 4 mudanana ka aamuseen hal xildhibaan uu diiday 47 mudanaa jooga 42 mudane waxay ogolaadeen in la ansixiyo xeerka oo ka kooban 29 qodob hal mudane uu diiday hal mudane uu ka aamusay 4 mudane way ka aamuseen gudoomiyuuna muu codaynin sidaas uu ku ansaxay wax ka bedelka xeerka xabsiyada Soomaaliland xeer number 65 2014 xeerkan ayaa lagu maamuli doonaa nidaamka xabsiyada Soomaaliland iyadoo uu hore ismaandhaaf uga dhaxdhaliyay golaha guurtida iyo wasaaradda cadaaladda Khalid Xabsi Kalsan TV Hargeysa.